bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan daawade kusoo dhowo wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka. qodobada wararkeenna aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha itoobiya oo ka tagay magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti dibna ugu laabtay dalkiisa itoobiya. maxay tahay sababta? shirka jabuuti ee soomaaliya iyo somalilan muxuu kaga duwan yahay kuwii hore? falanqayn dheer oo arrintaasi ku saabsan ayaad warka ku daawan doontaan. senatare shaaca ka qaaday xogo iyo macluumaad ku saabsan shirka jabuuti ka dhacaya iyo ujeedada villa soomaaliya ay ka leedahay. hal arin oo dowladda federaalk ee soomaaliya ku qasabtay inay aqoonsato madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe. wararkii ugu dambeeyey weerar madaafiic ah oo lagu qaaday saldhigga ciidanka amisom ee degmada balcad. macluumaad ku saabsan somalilan ujeedada ay ka leedahay shirka ka furmay magaalada jabuuti caasimada dalka jabuuti. iyo villa soomaaliya oo war cusub ka soo saartay wadahadalada jabuuti ka soconaya. intaasi waa qaar ka mid a qodobada wararka ugu doorka roon ee xilligan. u diyaargaro inaad daawato xogo iyo macluumaadyo kale oo ku saabsan warkeenna. haddii ay tahay markii kugu horreysa ka dhiiba aragtidaada qodobka kusoo jiita like saar oo la wadaag saaxiibadaada muuqaalkan. mahadsanid. waa 15 bisha 6 sanadka 2020. iminkana u diyaargarow warkii oo fidsan. inta aanan eegin ra-iisul wasaaraha itoobiya sababta uu jabuuti kaga tegay, waxaan ku eegi doonaa macluumaad kooban shirka jabuuti ee soomaaliya iyo somalilan iyo waxa uu kaga duwan yahay kuwii hore. weli waxaa dalka jabuuti ka socda shirka wadahadalada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo somalilan, iyada oo ay kulmeen mas-uuliyiinta labada dhinac si guud iyo si gooni ah. waxaana shirkaasi laga soo saaray qodobo hordhac u ah oo ay ku heshiiyeen labada dhinac. inkastoo weli shirkaasi uu socdo, haddana waxaa la isweydiinayaa maxay tahay waxyaabaha shirkani uu kaga duwan yahay kuwii hore. shirkani waxaa ka qaybgalaya wafuud culus oo ka kala socda labada dhinac, waxaana u kala dabqaadaya madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle, iyadoo ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed lagu casuumay. waxaa sidoo kale goobjoog ka ah safiirka maraykanka ee soomaaliya iyo xubno kale. dhinaca hadalhaynta waxay u muuqataa in dadka soomaalida si gaar ay u daneynayaan marka aad eegto sida loo hadlayo, gaar ahaana baraha bulshada iyo warbaahinta, iyadoona dadku ay aad ugu dhegtaagayaan waxyaabaha ka soo baxa shirkaasi. brofesor xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda calgary ee dalka canada ayaa shaaca ka qaaday in shirkani laga filan karayo rajo aad u weyn marka la eego sida wadahadalada ay ku bilowdeen. waxa uu sheegay in guddi culus meesha ay tageen oo ah madaxdii ugu sarreysa labada dhinac oo soomaaliya iyo somalilan. sidoo kalena waxa uu sheegay in wasiiro badan ee goobta ay joogaan, waxaana arrintaasi uu sheegay inay tahay mid ay kaga duwan tahay shirarkii hore. sidoo kale waxa uu sheegay in maraykanka uu goobjoog u yahay oo shirkaasi dabada uu ka riixayo. ra-iisul wasaaraha itoobiya oo awal aanan lagu tiri jirin in madaxda itoobiya ay taageertay isku imaanshaha iyo waxyaabo noocaasi la xiriira, iyo midowda afrika iyo midowda yurub, jaamacadda qurumaha ka dhexeysa iyo xubno kale ayaa goobjoog ah. waana sababta ay kaga duwan yihiin shirkani kan ka dhacaya magaalada jabuuti, gaar ahaana kuwii hore usoo dhacay. waxaa sidoo kale uu sheegay in caqabada ugu weyn ay tahay in somalilan ay doonaysa in ictiraaf la siiyo, halka soomaaliya aysan ogoleen wax kala go-a, taasi oo ah midda ugu daran oo labada dhinac aanay ka suurtagelaynin. ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya marna noqday madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa si cad u sheegay in wadahadaladaasi waxba aanay kasoo baxaynin mar haddii somalilan ay doonaysa ictiraaf, dhanka soomaaliyana aynan taasi doonaynin. waana midda uu sheegay in caqabad kale ay tahay. yaasiin maxamuud xiir faratoon oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan oo ka qaybgalaya shirkaasi ka dhacaya magaalada jabuuti ayaa sheegay dhankiisa in qaabka loo ambaqaaday wadahadaladan ay ka duwan yihiin shirarkii hore ee dhex maray soomaaliya iyo somalilan. wuxuu yidhi shirkan waxa uu kaga duwan yahay kuwii hore. waxa uu leeyahay martiqaadyaal, dad miisaan leh oo odayaal iyo madaxweyne ah, isla deegaankana ay ku yaaliin labada dal ayay ka socdaan, ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan. brofesor xuseen warsame ayaa dhankiisa waxa uu ku sheegay in waxyaabaha xiisaha u yeelaya shirkani ay ka mid yihiin in la isku furo dhaqaalaha gobolka iyo isbeddelka siyaasadda ee geeska afrika, taas oo door weyn ay ka ciyaarayaan wadamo badan oo ay ka mid yihiin eritrea, soomaaliya iyo etoobiya. war murtiyadeed laga soo saaray shirkaasi ayaa lagu sheegay in lagu heshiiyey in la sameeyo guddi farsamo oo wadajir ah, kuwaas oo hawsha halkaasi kasii wadi doona, islamarkaana dib u eegi doona waxyaabihii horey loogu heshiiyey, in labada dhinac aanay siyaasadeynin kaalmooyinka horumarineed iyo maalgashiga, iyo in dalka jabuuti uu noqdo madasha kulamada dhanka farsamada ee lagu sii dhaqaajinaya wadahadalada. waxaan filayaa inaad ogaateen macluumaad dhowr ah oo ku saabsan shirkan ka dhacaya magaalada jabuuti. markaana aan eegno ra-iisul wasaaraha itoobiya.
ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa saake ka baabaxay magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti oo shalay uu kaga qayb galay wajiga koowaad ee shirka wada hadalada ee Soomaaliya iyo Somaliland oo shalay ka furmay dalkaasi. Abiy iyo wafdigii uu la socday ayaa waxay gaareen magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxaana garoonka ku yaala gudaha dalka Jabuuti ka soo gootiyay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan Jamhuuriyadda Jabuuti. Ra-iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed ayaa door weyn waxa uu ku lahaa qorsheynta iyo qabanqaabada shirka ka furmay Jabuuti kaasi oo maalintiisii labaad maanta galaya. Sidoo kale wuxuu shalay uu ka jeediyay furitaanka shirkaasi khudbad xasaasi ah oo uu kaga hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid yihiin xaaladaha Soomaaliya iyo Somaliland. Ra-iisul wasaare Abiy Ahmed carabka waxa uu ku dhiftay in meelo badan oo dunida ka mid ah lagaga heshiiyay dhibaatooyinka waaweyn mid hadda dhex taala Soomaaliya iyo Somaliland loona baahan yahay in dhinacyadu ay sii wadaan wada xaajoodyada. Ugu dambeyntii wuxuu u mahadceliyay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo shirkaasi martigeliyay sidoo kalena gudoomay furitaankiisa. arrimaha shirka intaanan ka bixin dowladda federaalka ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay madaxtooyada guud ahaan shirkii ka dhacay magaalada Jabuuti ee caasimadda dalka Jabuuti. qoraalka ayaa u qornaa sidan: madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa khudbad ka jeediyay shirka dib u heshiisiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland waxaana uu tilmaamay maamuuska walaaltinimo ee ku xeeran wada hadaladan iyo himilada shacabka Soomaaliyeed ay u qabaan horumarka, nabadda iyo midnimada. madaxweynaha ayaa muujiyay ififaalaha shacabka iyo sidoo kale dowladda Soomaaliya ay ku qabaan gogosha ay u fidiyeen walaalaha dalka Jabuuti shacab iyo dowladba maadaama ay baal dahab ay kaga jiraan dowlad dhisidda dalka Soomaaliya iyo garab istaaga shacabkeena Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Villa Soomaaliya. madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo garbaha ay ka fadhiyaan gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Khayre wasiiro iyo mas'uuliyiin heer qaran ah ayaa waxay la wadaageen madaxdii kulanka ka qayb gashay iyo beesha caalamka sida dowladda federaalka ee Soomaaliya uga go'an tahay in wada hadal maan furan oo miro dhal ah lagu xalliyo tabashada walaalaheena Somaliland ayaa sidoo kale lagu yiri qoraalka ka soo baxay Villa Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya ayaa ugu mahadceliyay walaalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle shacab iyo dowladaba martigelinta shirkan isagoo oo ku bogaadiyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed, safiirka dowladda Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto, urur goboleedka IGAD iyo Midowga Yurub kaalintooda dhiirigelineed ee ku aadan qabsoomida shirkaani wada tashiga ee taariikhiga ah ee ka dhacay magaalada Jabuuti ee caasimadda dalka Jabuuti. sidaas ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Villa Soomaaliya loogana hadlay shirka ka dhacay gudaha magaaladaasi Jabuuti. wararkii ugu dambeeyay Jabuuti naga soo gaarayeen waxay sheegayaan in dib ay u bilowdeen wada hadalada oo maalinimadii shalay wax natiijo ah ay ka soo bixin sida uu sheegay gudoomiyaha golaha guurtida ee Somaliland. waxaa mas'uuliyiinta Somaliland ay sheegeen in shuruudo ugu adag ay tahay in Somaliland marka hore loo aqoonsado dal oo ay kulankaasi kaga qayb galaan sidii dal madax bannaan oo kale, taasi oo noqotay caqabada ugu weyn ee haysata shirka iyada oo maanta la filaya in wajiga labaad uu galo shirkaasi. markana Jubbaland haddii aan eegno war-saxaafadeedkii shalay ka soo baxay Villa Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxweyne ku meel gaar ay u aqoonsatay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe taas oo doorashadiisii ay diiday sanadkii hore. xogtan helena waxay sheegaysaa in dowladda talaabadani ay qaaday kadib markii lagu cadaadiyay ogolaanshaha iyo tanaasulka khilaafka Jubbaland. xubnaha beesha caalamka gaar ahaan Mareykanka iyo xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa dowladda Soomaaliya ku cadaadiyay inay tanaasul ay samayso si loo ambaqaado arrimaha doorashooyinka loona qabto shir wada hadal ah. safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa isla shalay soo dhaweysay aqoonsiga dowladda Soomaaliya ee madaxweynaha Jubbaland iyo shirka wada tashiga ah ee madaxweynaha uu iclaamiyay kaasi oo la filayo inay isugu yimaadaan madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada. markana Balcad haddii aan eegnana Al-Shabaab ayaa lagu waramayaa in weerar ay ku qaadeen saldhig ciidamada ay ku lahaayeen gudaha degmada Balcad. faahfaahinno dheeraad ayaa ka soo baxaya weerar madaafiic loo adeegsaday oo dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen qaybo ka mid ah degmada Balcad oo xiriirisa labada magaalo ee Muqdisho iyo Jowhar. wararka ayaa waxay sheegayaan in weerarka lala bartilmaameedsaday saldhig ciidamada Burundi ee qaybta ka howlgalka nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM ay ku leeyihiin xaafadda Xaawataako ee degmadaasi gaar ahaan warshadii hore ee dharka. ugu dambeyntii senator Nuuro Faarax ayaa waxay ka hadashay wada hadalada Soomaaliya iyo Somaliland. xildhibaano ka tirsan aqalka sare gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolada waqooyi ayaa waxay ka hadleen wada hadalada madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland uga furmay Jabuuti. senator Nuuro Faarax jaamac oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare lana hadashay warbaahinta ayaa sheegtay in wada hadaladaasi ay ahaayeen kuwa u baahnaa in waqti hore la qabto. wararkii guud ahaaneed waa naga intaa warkan warka xigantaan ku kulmi doona nabadgelyo.